السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد عاوي جنال برنامجكي أقون مال ما أنتنا هدو على كرالي نقضو حايدين سو قد بدونا 10 كي طبانات مادة فيزيكسكا جارهان فصل قلبي طبانات عتب كيسة كواد 10 كان ما أنتو حكو سابسن يهي تصالها تضبعات كاسو نقضونو تصالها سدحات كاسو ليهي period and frequency in simple harmonic motion كالكا إيركاتكا سعود اسكو دي بدع فدود تصالحنا وحو نقضونا سيداتان سو سعوتو a block of mass M attached at the end of a spring of force constantly 100 Newton per meter vibrates in simple harmonic motion with a frequency of 10 over pi hertz. Find the mass of the block. A block of mass M كاسو كحرن at the end of a spring دمات مولو force constants مدور سماها مولو ويا بقول نيوتن per meter vibrates in simple harmonic motion أي وحيجري تصعد اسكودي بدعثن frequency ركات كل واحدة نحن نقطة طبعا اللوقي باي هارتس محون نقنيا عفك عد كاسي a block of mass M عد عف كاسو كحرن دمات كمولو مدور سماها مولو ويا بقول نيوتن per meter أي وحيجري تصعد اسكودي بدعفضوت ركات كيس نحن نقطة طبعا اللوقي باي هارتس وعصايا شا عفك ولا حدا si aan u shaqeyn tusaalahan waxa u baahanaa markood inaan sameysano waxna la siiyo givenka la siiyo markood waxaan haysanaa spring constant madoorsama moolada 100 newton per meter waxa kale oo haysanaa frequency-ga oo ah 10 loo qeyb by hertz waxa noola diray mass si aan ugu soo shaqeyno mass waxa u baahanaa markood inaan soo raadino muxuu yahay xiriir ka dhaxeeyo spring constant frequency iyo mass dan aan ka soo baxsano qaacidada ay leedahay mass xiriir ka dhaxeeyo frequency mass and spring constant wuxuu kula mid yahay frequency waxaan haysanaa 1 over 2 by radical k loo qeybiyay m waxa u baahanaa marka noo dir mass si aan u soo saarno mass mar walba ina baabina wax walba la socdo inta radical ku maan markood waxa baabinayna 2 by maadaama aan haysano qaybin waxa lagu baabiyaa ku dhufasho meel walba waxaan ku dhufaneynaa 2 by ku dhufsan frequency waxay kula mid tahay 2 by oo ku dhufsan 1 over 2 by radical k oo loo qeybiyay M 2 by iyo 2 by waxay noqdaan isla bixeen inta waxa inoo soo aray 2 by oo ku dhufsan frequency inay ku mid tahay radical k oo loo qeybiyay M sidaan ognaanay waxa u baahanaa mass waxaan ku jira radical ka soo baabi'in waxaan sameynaynaa square hadii hal dhinac square dhankan waa inaa square gareysaa square 2 da square garan waxay noqonaysaa 4 by square waxay noqonaysaa by square f da square garan waxay noqonaysaa f square waxay ku mid tahay square radical isla bixeen waxa inoo soo aray k oo loo qeybiyay m kan waxaan naqaan hoose inuu yahay 1 waxa sameeyna cross multiple labadaan isku dhufo 4 by square f square oo ku dhufsan mass waxay ku mid tahay k si aan u helno mass meel waxa u qaybinaynaa 4 by square f square inta waxa u qaybinaynaa 4 by square f square therefore 4 by square f square iyo 4 by square f square isla bixeen waxa noo saar mass inuu noo mid yahay k oo loo qeybiyay 4 by square oo ku dhufsan f square simple therefore marka waxaan ku bedelo doonaa qiimaha k aan haysano waa 100 newton per meter by 3.14 frequency waxaan haysanaa 10 oo loo qeybiyay by hertz sida kor ku soo aragteen waxaan soo burufinay qaacidada leedahay mass wuxuu ku mid yahay k oo loo qeybiyay 4 by square oo ku dhufsan f square haddaba waxaan naqaanaa k inay nolol mid tahay 100 newton per meter frequency inuu loo qeybiyay 10 loo qeybiyay by hertz uu yahay maadaama aan haysano k 100 newton per meter 4 by square frequency waxaan haysanaa 10 loo qeybiyay by hertz waxaan ognahay hadda 10 square garan wuxuu noqonayaa 100 hadda by square wuxuu noqonaysaa by 10 square oo 100 iyo 100 isla bixi doonaa by square isla bixeen meesha waxaa ku soo haray 4 korna waxaa noo yaalo 1 sababta 100 loo qeybiyay 100 waa hal maaskan wuxuu noqon doonaa 1 over 4 maadaama mass lagu cabir kilogram waxaan siinay 1 over 4 kilogram ama waxa dhigi karna wuxuu ka soo baxay kilogram newton wuxuu ku limid yahay kilogram meter per second square meter iyo meter waxay noqon doonaan kuwa isla baxo hertz wuxuu ku limid yahay 1 over second square newton meter kilogram meter per second square iyo second square kaas la bixi doono waxa noo soo har wuxuu noqon doonaa kilogram oo kaliya ay noqon doonaa aad baad u mahadsantahay daawashada 10 aad daawatay haddii aad ku cusub tahay kanaalka caawiya janaal subscribe si dad badan ay u faa'iideystaan share